السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملك السؤال جوكتان كسر دوادا هالكني ويميلو أونلاين كوليج ومركلة إيو صاحبكينا دكتور سخاو الدين فضلا هديات نقول عصبت هاي برنامج كينا نوشر جراي أونلاين جراي أو هدي كلنا أصحاب هذا اللي ذاك وتهاي ما أنت وحاربنا إنا ندوبنا عشر كوجو الرئي 10 كيلوبات عنده 2020 كان ugu talagalnay ama 21 kan ugu talagalnay عنده 2021 kan ugu talagalnay 10 kaasi maanta wuxuu ku saabsan yahay wax la yiraahdo nazaides marka intaana guda galin 10 ka waxaan idin ka codsanaynaa hadii aad diyaar u tahay inaad himilo ku soo biirto nambarada shaashada kaaga muuqda nambarada kor kaaga muuqdo nagala soo xiriir oo soo dhawow halkani waa goob caafimaad oo lagu dhigo caafimaadka iyo luqadda Ingiriiska iyo multimedia ama magaranaysa video editinada qaybihiisa kala duwan marka soo dhawaadaan idin leenahay gacmo furan waxa idin diyaar shaqaale idin soo dhaweeya waa tahay maanta waxaan rabnaa inaan idin dhigno wax ay dadka idinka naga codsaday dad badan oo page ku xiran baa yiri dawooyinka xanuun baabiyaasha Soomaaliduna waad ogtihiin aad bay iskaga isticmaalaan yar iyo weynba maanta waxaynu ka hadlaynaa in yaro kooban oo faa'iidadooda introduction kooda waxa loo isticmaalo dhibaatada ay keeni karayaan bal nala soco marka iyada ah halkaad nagala socotaan waa Himilo Online College waxaan rabnaa maanta inaan dhigno wax la yiraahdo nazaides dad badan baa isweydiiyay waa maxay nazaideska waxa weeyaan waa dawooyinka xanuunka baabi'iya kelmadahan waa kelmado la isku keeno abbreviation kooda waa xarfo la soo kaabiyay waxaana la yiraahdaa waa nazaides sida daraadeed walaal introduction kiisa aan galno hordhaciisa ama qaybta koowaad ama introduction ka lagu qeexayo nazaideska kelmadani waxa laga soo gaabiyay non steroidal anti-inflammatory drugs maxaa laga soo gaabiyay wadigaysaan u malaynaya non steroidal anti-inflammatory drugs means waa dawooyin ama koox dawooyin oo xanuunka baabi'iya oo wax ka qabta siyaabo kala duwan wax u qabta anagoo soo koobi doono xanuunada xanuun baabi'iyaasha sida muruqyada qofka gaadhay laf xanuunka xumada ama temperature-ka qaarkood inay xanibaan qanjirka dhacaanka loo yaqaan prostaglandinka si qofka aanan u dareemin xanuunka marka si kala duwan hadaba dadku marka qof kasta aad weydiisana dib malaha uu isticmaala xanuun baabi'iya markuu maqlo waxa way qaar baa relief isticmaala qaar baa diclofenac isticmaala qaar baa ibuprofen isticmaala laakiin dawooyinkan ay qasaaradoodu way badan tahay walaalayaal non steroidal anti-inflammatory are medication waa dawo widely used to treat si balaaran bay Soomaalidu isticmaashaa ama caalamka widely used to treat aad baa loo isticmaalaa waliba a range of conditions xaalado badan baa loo isticmaalaa conditions xaalado fara badan baa loo isticmaalaa nazaideska are used waxa inta badan loo isticmaalaa markaynu soo koobno kuwa gaar ah sida relief pain in xanuunka baabi'iyaan reduce in yareeyaan inflammation caabuqa sida redness and swelling bararka in yareeyaan aan caabuqi magacmeesha casaanaysa in yareeyaan bring it down maxay hoos u dhigaan a high temperature sida qofka hadii xumadii hayso kale in xumadii ka jibiyaan headaches madax xanuunada in loo isticmaalo painful periodiska waa maxay waxa weeyaan marka ay gabadhu ku jirto yaani xilliga caadada inay ku yar xanuunsanayso ma faahfaahinayno marka xilliga caadada ay ku xanuunsato inay marka xanuun baabiye isticmaasho toothache wax loo yaqaan ama toothache marka dadku ilku gooska xanuunaan dentalka ay ku markaasi ay xanuun dental crisis-ka ay ku jiraan xaalado fara badan soft tissue injuries-ka dawooyinka nazaideska markii laga hadlayo oo lafa xanuunka loo isticmaalo orthopedic dadka lafaha marti wax laga daaweeyo dhaqaatiirta inta badan way siiyaan ayagoo cirbaday leeyihiin injectionska ayagoo kiniiniyay leeyihiin ayagoo ma garanaysa sharoobooyin beelin carruurta loogu talagalay marka dawooyinka xanuun baabi'iyaasha ila soo qaybtooda kale waa maasantihiin بسم الله الرحمن الرحيم ولي halkeeni baan ku sii soconaa casharkii qaybtii kale ku jirnaaye halkaad nagala socotaan idin xasuusiyo waa Himilo Online College waa anigoo Dr. Sakhawdiin soo dhawaada share gareeyo barnaamijka oo la wadaaga asxaabtiina barnaamijka page-kana la gareeyo oo gaarsiiyo kumanaan milyuun insha Allah boqol iyo xogaa baan rajaynaynaa inaan dhawaan gaarnay
NSAIDs-kii baan ku guda jirnaa walaalayaal dadweynahana soo codsaday waxay dhaheen waad ka soo hadashay digestive drugs-kii waad ka soo hadashay antibiotics-kii maanta anoo rabo inaan ka hadlo cardiovascular ayaa la yiri maanta waxa ka soo hadashaa NSAIDs-kii xanuun baabi'iyaashii oo base-ka ice-ka marka laga reebo pharmacology la baranayo introduction-ka pharmacology marka laga reebo NSAIDs-kii baa ku xiga NSAIDs-kii baan rabnaa inaan wax yaa ma dhammaystiri karnee idinka gaarsiino NSAIDs-kii baan rabnaa NSAIDs-kii xanuun baabi'iyaashii markii dhaweyd qaybtii hore waxaan ku soo aragnay non steroidal anti-inflammatory disorders ama disease so analgesic marka waxa loo kala qaybinayaa parts ama types noocyada ay leeyihiin marka waxa loo kala qaadayaa analgesics antipyretic anti-inflammatory analgesic antipyretic marka dawooyinka magaca guud waa xanuun baabi'iye laakiin awood ahaan bay category kala leeyihiin very good analgesic pyretic inta badan waxa loo isticmaalaa xumad jibintii ama waxa loo yaqaan qofka marka ay xumad hayso sidoo kale analgesic-na xanuunka xumadda ka sareeya sida garaaca ilkaha angooska anti-inflammatory waa kuwa ugu awood badan na yareeya caabuqa iyo bararka iyaguna inta badan kooxa dhan baa hoos yimaada marka ayada ah NSAIDs-ku markii laga hadlayo raalli hada anu English idima baraya casharka baan sharaxayaa also known as magac kalena way leeyihiin NSAIDs-ka markii laga hadlayo magac kale leeyihiin waxa loo yaqaanaa non narcotic ama non opioid dawooyinka dadka xanuunka ka baabi'iya magaca labaad weeye leeyihiin non narcotic ama non opioid very good so haddaba maxay yihiin waxaanay waxa ay wax ka bedeli karaan they do not discourage inta badan ayagu wax kama qabtaan CNS-ka waa central nervous system waa central nervous system it means habdhiskaasi waxba kama bedelayaan dawooyinkan xanuun baabi'iya saameyn kuma yeelanayaan inay xanuunka ka baabi'iyaan mooyaane iyagu very good oo shaqadii marka discourage kuma sameynayaan oo shaqadii neerbaha uu hayo kale dhaxgeli maayaan they do not produce dawooyinkani ma soo saaraan physical dependency-ga in qofku physical dependency-ga ay wax ka qabtaan ma suurtageli karto marka iyada ah they are weaker markii loo eego waa weaker markii loo eego xagga analgesics-ka kuwa dawooyinka xanuunka baabi'iyo haddaba dawooyinkan aynu ka sheekaynayno parts classification bay leeyihiin classification of drugs waxaa ka mid waxa loo yaqaan salicylitis example aspirin waxaan rabnaa inaan dadku uga digno kaniinka loo yaqaan aspirinku oo aan muddo soo isticmaali jirnay in ay dhibaatadiisu badan tahay haddii tusaale ahaan waxaa ku jirta maado la dagaalanto anticoagulantiska xinjirowga dhiigga sidaa darteed qof dhaawac qaba hooyo hadda umashay lama siin karo dadka gaaska qaba sidoo kale peptic ulcer-ka nabarka caloosha ku leh aspirinka isagana waa ka mamnuuc aspirinku dhibaatooyinkiisu way farbadeen xitaa iska badaaya haddii qiyaastiisu aad badato waxaa hoos u dhaca maqalka dhagaxa oo saameyn buu ku yeelanayaa marka ayada nerveska maqalka dhagaxa ah marka waxaan rabnaa inaan ogaano aspirinku inuu ka mid yahay daawooyinka xanuun baabi'iyaasha laakiin hadda waxaan u malaynaya inaan la isticmaalin haddii ay dhacdana cidda isticmaali karaysa waa cidda aan dhibaatooyinka soo sheegay ka madax bannaan yihiin waxaa kaloo jira wax loo yaqaano propionic acid waa derivatives waxay ka yimaadeen ahaan ibuprofen kaniinka loo yaqaano ibuprofen wuxuu ka mid yahay daawooyinka ugu awooda badan loona isticmaalo xanuunada khatarta ah ama garaaca wax loo yaqaano ibuprofen dhibaatadiisa sidoo kale way badan tahay isaguna waliba adigoo gaajoon inaad isticmaasho waa qalad daawooyinkan oo kale waxay inta badan ka mamnuuca inay isticmaalaan dadka waaweyn dhikarka qaba dadka waaweyn keliyaha ka xanuunsanaya dadka liver damage-ka qaba dadka gastritis-ka qaba waxaasoo dhan way dhibaato badan kaniinka ugu fiican as leenahay toxigiisa ama suntiisa way yar tahay waa kaniinka loo yaqaano paracetamol ama kaniinka la yidhaahdo Panadol dawada ugu waxyeelada yar waayo if each drug dawo kasta waxyeelo leedahay laakiin dawada ugu waxyeelo yarsan dawo la isticmaalaayo waa paracetamol iyo Panadol sidaa darteed ayagu maaha chemical compound halka dawooyinka qaarkood ay dawo waxyaabo badan oo isku jira ay yihiin marka maxaa yee ka mamnuuc tahay dadka renal impairment-ga qaba renal impairment
dadka kaliya xanuunka ka qabo waa qaba mamnuuc inay isticmaalaan kani karaan ugu sheegeen dawooyinka xanuun baabiyaasha aspirin indomethacin diclofenac ibuprofen relief maxaa kale dawooyin fara badan xanuun baabiya ay caado ka dhigteen dhalinyarada iyo dadka waayeelada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka kubadda ciyaara xitaa qaar ba waxa jira sii cuna marka ciyaarayaan si uu marqaan geliyo markaas ay noqdaan kuwa aan waxba dareemin sidaa darteed marka waan kala talinayaa bulshada isticmaalka dawooyinkan bilaa dhakhtarka ama bilaa xuduud ah taladaasna haddii ay Soomaalidu aqbalayaan waa ka mamnuuc renal environment-iga waa ka mamnuuc dadka qaba peptic ulcer dadka gaaska qaba caloosha ama nooc raba ha noqdo nabarka gaaska xiidmaha qaba waa ka mamnuuc marka ogaaw sidaa iyada ah waad maasantihiin weli waxaan ku guda jirnaa classification of drugs mudanayaal iyo marwooyin dadkana daawanaya Soomaaliyeed maanta waxaan rabnaa inaan idinka dhaadhicino in dawooyinka xanuun baabiyaasha oo la iska isticmaalay ay keeni karayaan dhibaato mustaqbaleed xaalad caafimaad oo jirkaaga ah very good marka digtoonow baan leenahay hooyooyinka iyo waayeelada iyo duqooshinka la siinaya dawooyinka xanuun baabiyaasha ayaga keenay kidney failure liver damage ama liver cirrhosis waayo dawadani mad cidna kuma qorin wax aad qabtadna garan maysid kaliya inay shaqeynaan garan maysid dawada waa iska isticmaalaysaa waa mamnuuc walaal qodobka saddexaad iron acid kan marka ama acetic loo yaqaano derivatives waxay ka timid diclofenac waa caan iyadoo injection ay leedahay iyadoo kaniinina waa leedahay waxay la mid tahay dawooyinkan xanuunka loo isticmaalo diclofenac pyrrole isagana derivatives asal ahaan geedka uu ka yimid dawada waa ketra iyadana injection bay leedahay ketragu ee kaniinina way leedahay indol or derivatives example indomethacin waxaan ognahay inuu capsule ku yimaado capsule ku yimaado wadawada la isticmaalku ku jira isagana xanuunka isticmaalka baabiya dawooyinkaas xanuun baabiyaashu dhibaatooyin fara badan bay keenaan ma santihiin oo de mar wada dhameystiri karno qayb ka duwan baan idin sheegnay bini aadanna waan nahay mid kale commentiga iyo faalaynta waa inoo muhiim nooca ay rabtaba ha noqotee commentiga iyo faaladu waa inoo muhiim waan qaadanaynaa walaalka waxa inoo tilmaama haddii xitaa bini aadan baan wax naga qaldamaan walaalka wax ma garanaysa inoo sheeg intaba positive way welcome with open hands halkan waa Himilo online college soo dhawaada happy new year isbedel cusub waxaan rabnaa dhiirigelin yar inaad ku darsado oo anigoo saxawdiin ahaana maxaa ku qorshaysan sanadkan maadaama lagu jiro January 2021 walaal maxaad ku kala duwan tihiin noolaha rabbi abuuray iyo adiga noolaha ilaahay abuuray saddex baa loo kala qaadaa mid waa dhirta waa noole labo mid waa xayawaanka midna saddexaadna waa bini aadamka dhirtu ma samayso dhaqaaq laakiin halka ay ka baxday bay ku weynaataa xayawaanku dhaqaaq buu sameeyaa wuu soo laabtaa laakiin aqli ma leh laakiin anaga ilaahay wuxuuna dheersiyay aqli farqiga inoo dhaxeeya sidaa darteed anaga iyo xayawaanka waxa inoo dhaxeeya waa inaan ku fikirnaa isbedel haddaba maxaa kuu qorshaysan sanadkan ma jeceshahay inaad ku guulaysato waxyaabaha hadda aadan gacantaada ku haynin waa samayn karaysaa ogow dadka guulaystay oo dhan 24 saac bay haysteen adiguna 24 saac baad haysataa hay oranayn waa mashquulsanahay 8 xaruur baan hayaa hooyaan ahay ganacsi baan ku jiraa haddaba dadka guulaystay oo dhan بإذن الله فيديو كبلارن أو ديرجلين بندي شيء دونا مالي صوت دو بدونا هذا وما ستين شرقري برنامج كله قرية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته